inuu soo celiyo bahashaasi aanay faraha ka bixin ee maanta inooga dhisayo meel aynu ku kaydinno taariikhda qaranka aad iyo aad baynu madaxweynaha uga mahadnaqaynaa arrintaas waanu meeshii taariikhiga ahayd aan islahaan weyn lunta uu soo celiyo cayntiiyey dadweynena waxaan leeyahay war guri yaroo la dhisto ubaynu ku wada yaacaynaa meelaha taariikhiga aan nabadgelinno xaruntani laga dhisaayo halkan waa xarun aanu tabaynay waa xarun dhaqankeenna in lagu kaydiyo u baahan oo madaxweynaha xasuustay ee taariikhda ay u gashay ee maanta dhisaaya isagaa ku mahadsan waxaa qorshaysay sharikadda la yidhaahdo ee waddanigaa riyo iyo rashiid cali waxaana dhisaya ciidanka qaranka farxadday maanta noo tahay inaan kugu soo dhowayno mudane madaxweyne mandaqadda geeska afrika iyo bariga dhexe inay yihiin meelihii bini'aadmi nebi aadan iyo ummadkiisu ay ka tafiirmeen bariga dhexe dhulkaa imika la isku dilaya ciraaq leh ee shaam leh ee jidda leh magacley waa iyadeen ee innaga leh oo la odhan kara lafaha bini'aadmi ee ugu da'weyn waxa laga helay halkan daraakilada etoobiya ee noo dhow waxaa laga yaabaa intaa in ka badan oo taariikha dhulkan taala qofkuna wuxuu hamoodaa uu himlo adag yeeshaa oo uu faanaayo madaxa taagaa markuu og yahay taariikhda dambe hadduu qofku ablaawo yahay oon taariikhba lahayn ma noqon qof adag kal hore ayuunbay ahayd markii dhismahan aanu bilownay ee aannu dhulka ka soo bilownay ee la banneeyey dhulkan maantana waa idinka arkayo dabaqii lixaad ayay maraysaa oo halkii u dambaysay waxaan hadhayuun barandihii sare oo waxay isku heer noqonayaanun daartan inagu xigta telesom waxaan rajaynayaa sanadkan dhammaadkiisana haddii alla idhaa in daartani dhammaato dhismahani dhammaado oo uu noqdo hoyga taariikhda qaranka somalilan oo la dhigi doono wixii somalilan ay taariikh lahayd